intaynan u gelin martida barnaamijka iyo martida barnaamijka faahfaahsan bal marka hore aynu ku horeyno wararka caalamka oo Isxaaq maalin inoo akhrin doono. mahadsanid dhimbil. ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa booqasho ku tegay dalka Ukraine waxa uuna la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky isagoona u sheegay in ay wada fariistaan iyaga iyo Ruushka si xal ay ugu helaan khilaafaadka ka dhexeeya labada dal. ra-iisul wasaare Modi ayaa intaa waxa uu hadalka ku daray sida kaliya ee lagu xallin karo arrintan inay tahay wada hadal iyo diblomaasiyad. ma cadda sida ay Kiev u aqbali doonto fariinta hogaamiyaha Hindiya, balse madaxweyne Zelensky waxa uu booqashadan ku tilmaamay mid saaxiibtinimo ah oo aad u weyn sidoo kalena ah mid taariikhi ah. diblomaasiga ugu sarreeya midooda Yurub Joseph Borrell ayaa ku tilmaamay qorshaha Jarmalka uu ku dhimayo kaalmada militari ee uu siiyey Ukraine mid walaac leh. Berlin ayaa kaalinta labaad ee ugu sarreysa ugu jirta kaalmeynta Ukraine, halka Maraykankana uu yahay midka ugu horeeya ee kaalmaha siiyey Ukraine tan iyo bilowgii dagaalka Ruushka iyo Ukraine. miisaaniyadda kaalmada ah ee Jarmalka ee sanadka soo aadan 2025 ayaa lagu kordhiyey $4 bilyan oo dollar, waana mid ka mid ah ayaa layidhi laba ujibaar miisaaniyaddii sanadkan. Master Borrell ayaa sheegay shir ka dhacay waqooyiga Spain ka sheegay in Jarmalka uu ahaa taageero ugu weyn ee Ukraine ay helaan. maxaabiis ku xirneed xabsi ku yaala koonfurta Ruushka ayaa weerar ku qaaday ilaalada xabsiga kadibna waxa ay horay u sii kaxaysteen qaar ka mid ah isla ilaaladaasi. ciidamada asluubta waxa ay sheegeen in la qaadayo tallaabooyin lagu soo furanayo ilaaladii la kaxaystay. waxaa la soo tabiyey khasaare ka dhashay weerarkaasi maxaabiistu ay geysteen. xabsigan waxa uu ku yaalaa gobolka Volgograd. ilaa iyo haatanna ma cadda maxaabiista baxsatay iyo sidoo kale tiradii ilaalada ee lala baxsaday, balse masawiro aysan BBC-du xaqiijin karin ayaa la sheegay in laga soo qaaday goobta, waxaana laga dheehan karay dhiig yaalay xabsiga iyo sidoo kale qaar ka mid ah ilaaladii badbaaday oo dhaawacyo ay ka muuqdaan. saraakiisha qaramada midoobeyna waxa ay xaqiijiyeen kiiskii ugu horreeyey ee cudurka dabaysha kaas oo ka dilaacay magaalada Gaza muddo 25 sano ah. qaramada midoobe waxay sheegtay in la arkay canug 10 bilood jir ah oo qayb naafa ka ah. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO-na waxa ay sheegtay dhankeeda in baaritaanada ay muujinayaan hidde-sidayaasha in lagu arkay jaantus muujinaysa xiriirka ka dhexeeya raadadka fayraska dabaysha ee laga helay biyaha wasakhaysan ee Gaza bishii Juun. madaxa WHO Tedros Adhanom ayaa waxa uu sheegay in aad ay uga walaacsan yihiin arrinkani, sidoo kalena ayna socdaan dadaallo lagu fulinayo barnaamijka tallaalka in ka badan 6 bilood iyo sidoo kale in lagu fuliyo 4,000 oo carruur ah. dhanka kale waxa uu sheegay in toddobaadkii hore ay qaadeen tallaabooyin arrinkaasi la xiriira. qaramada midoobena waxa ay codsatay in toddobaadkiiba 2 maalmood la joojiyo dagaalka Gaza si ay tallaalka u gaarsiiyaan dadka. ugu dambeyntiina Kamala Harris ayaa ballan qaaday waddo cusub oo lagu hormarinayo siyaasadda Maraykanka maadaama ay aqbashay magacaabistii xisbiga dimuqraadiga ah ee ah in ay matasho oo ay xisbiga ku matasho doorashada madaxtinimada dalkaasi. iyada oo la hadlaysay taageerayaasheedii ku sugnaa Chicago, haweeneyda haatan ah madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka waxa ay sheegtay in ay jirto arrimo waaweyn oo looga gudbi karo kala qaybsanaanta siyaasadda Maraykanka. Kamala ayaa sidoo kale codbixiyayaasha waxay u ballan qaaday in ay qaadayso tallaabooyin la xiriira canshuur dhimis. sidoo kale waxa ay soo hadal qaaday ilaalinta xuduudaha Maraykanka iyo sidoo kale arrimaha ilmo iska soo ridista oo ah mid aad ugu ballaaran dalka Maraykanka. dhanka kale Kamala waxa ay ku dheeraatay siyaasadda arrimaha ee dibadda ee Maraykanka, waxa ayna ballan qaaday in ay sii wadi doonto xiriirka xooggan ee kala dhexeeya NATO iyo taageerada ay siinayaan Ukraine. dhanka kale waxa ay ku nuuxnuuxsatay baahida degdega ah ee loo qabo xabad joojin ka dhaqan gasha magaalada Gaza, balse musharaxa ka soo horjeeda ee u tartamaya xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo ka hadlayay hadallada haweeneydan ama khudbadda ay jeedisay Kamala Harris waxa uu ka dhawaajiyey in haweeneydan ay tahay mid xag jir ah, waxa uuna ku eedeeyey in ay necab tahay Israa'iil.
wararka caalamka waa inaga intaas. aan dib idinkugu celiya qaybaha kale ee barnaamijka dooda jimcaha iyo dhimbil. aad buu u mahadsan yahay isxaaq maalin oo nala socodsiinayey wararkii b b c da ee dhegeystayaal u diyaargarooba barnaamijkeeni galabnimo aflaaqiinta jimcaha oo faahfaahsan. sidaynu horeba u sheegnay barnaamijkan toddobaadka waxaynu ku falanqeynaynaa doodii iyo khilaafkii guud ahaan ka dhashay cashuurta iibka ee dowladdu dhowaan soo rogtay iyo balse guud xaaladaha ku gadaamaan ganacsadu sidee u aragtaa cashuurtani maxay tahay dhanka dowladda si qorshuhu muxuu yahay hiigsiga laga leeyahay waa sidee sidoo kale sidee dadku u fahmi karaan hawshan iyo bal waxa ka dambeeya. barnaamijka waxaa igala qaybgelaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda cabdiqafaar xange oo khadka si toosa ugu jira iyo sidoo kale xasan cabdi axmed oo loo yaqaano xasan xoogsade loo yaqaan. xasan waa guddoomiyaha rugta ganacsiga suuqa bakaaraha iyo sidoo kale falanqeeye injineer axmed nuur amiin oo dhaqaalaha iyo teknolojiyadda ku takhasusay. soo dhawaada dhammaantiin. waa mahadsantiidina soo dhawaada. aan ku bilaabo wasiir cabdiqafaar. wasiir soo dhowow, bal cashuurtan dowladdu soo rogtay iyo bal waxay tahay iyo bal qorshaha si guud laga leeyahay bal inagoo si kooban dadka ugu sharxayna. cabdiraxmaan oo adiga b b c da iyo waa salaamayaa iyo akhyaarta dooda falanqeynta qaybta ka ah xasan xoogsade iyo khabiirka iyo dhammaan dhegeystayaasha. jimco wanaagsan. canshuurta laga hadlayo canshuur cusub maaha, waa canshuurtii gadista ama sales taxiga loo yaqaanay oo dowladda soomaaliya maaragtay horeyba u qaadi jirtay, walow qadarka la qaadayay iyo awoodda lagu qaadayay aada u yaraayeen, ayaa hababka lagu qaadayo iyo systemka lagu qaadayo unbaa la casriyeeyey lana ballaariyey. marka canshuurta horta guud ahaan taas weeye, waxayna ka mid tahay dee canshuuraha dal walba oo adduunka ahi uu qaado oo dowladnimadiisa iyo shaqooyinka adeega bulshada loo hayo lafdhabarka u ah. sidaa la socotid canshuuraha noocyo kala duwan ay u kala baxaan. haddii qiimeyn lagu sameeyo wadamada canshuurahoodu siday dakhliga soo xarooda, haddii la qiimeyo madaxyada ay ku kala fadhiyaan, madaxyada ugu waaweyn ee dowladaha dakhligu ka soo galo waa canshuurta la yidhaahdo income taxiga oo ah qofka dakhliga asaga soo gala canshuurta ku dhacda, iyo canshuurahan sales taxiga ah. intaa wixii soo raaca waa waxyaabo kale sida canshuurta duty customka iyo social securityga iyo waxa. marka dowladda soomaaliya canshuurtii awal ururin jirtay waxay ugu badnayd oo wax ka soo geli jireen waxay ahayd canshuuraha customka oo furdooyinka lagu qaado oo maaragtay aad dadku ugu dhiban yihiin. canshuurahan kaleeto oo sales taxiga, VAT-ga, personal income taxiga canshuurta la yidhaahdo, canshuuraha macaatul macaashka laga qaado waa la qaadi jiray, laakiin xadid aada u kooban maadaama dowladda soomaaliya ay tartiib usoo kabanaysay. marka waxaan kusoo koobayaa waa canshuur mar walba dowlad walba iyo maamul kastoo markaas jiray uu rabay inuu meel mariyo, laakiin awoodda hadba intay gaarto laga maaragtay sidaas way tahay cabdiraxmaan. marka farqiyaa udhexeysa maatan hadda iyo tii dhinacyadii hore iyo xukuumadyadii ka horreysay soo jeedin jireen si gaara xukuumadyadii ka horreysay? wax farqi uma dhexeeyaan. in la qaado oo awood loo helo la qaadaa meesha ka maqnayd. marka annagu waxaanu ka shaqaynay in wasaaradda maaliyaddu ay diyaarisay system qof kasta oo wax iibsada canshuurta asagoo ka jaraya. oo maadaama markaa systemkii hawsha hirgelinaya baa idinku diyaariseen iyo hirgelinteedii iyo shaqaalihii loo baahnaa iyo maaragtay nidaamkii lagu qaadi lahaa tax administration capacity kor u qaadnay. waad mahadsantahay. kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiqafaar xange. dhan kale khadka waxaa nagula jiraa xasan cabdi axmed oo guddoomiyaha rugta ganacsiga suuqa bakaaraha. bal soo dhow guddoomiye, bal idinka waxaad ka mid tihiin ganacsada iyo dadka ay sida caadiga hawshan u saameynayso, bal sidee u aragtaan si guud xaal sida wax u socdaan iyo hawshaas? ugu horeyn horta waxaan salaamayaa wasiir ku-xigeenka xange, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda iyo tiimka b b c da iyo saaxiibka kale martida ku ah isagoo falanqeeyaha ah
haddii aan ka jawaabo arrintaasi waxa ay tahay iyo saamaynta ay yeelatay iyo dareenka ay ka qabto ganacsatada magaalada muqdisho oo hadda shaqan ku sugannahay horta canshuurtaan waxaan u kala qaadaynaa laba qodob. marka ugu horeysa canshuurta waa la qaadi jiray waxna waa laga bedeli jiray wasaaradda iyo rugta ganacsiga iyo ganacsatadu ayagoo wada jiro oo rugta ganacsiga hogaaminaysa iyo wasaaradda dhinaca ayaa maadaama wadanku xaaladaha uu ku jiraaho ay mararka qaarkood caadi ahayn waa laisla maaragtay meel dhigi jiray waa laga tashan jiray markaas ayaa dowladdu awaamirteeda fulin jirtay. iyadoo sidaas ay tahay ayaa canshuurtii waxay kusoo aadaysaa xilli wax soo saarka ganacsiga ama macaashka ganacsigu uu aada u liito oo dadkaas sanadka lagu jiraa sanad ma ahan wax soo saarku uu aada iyo aada barwaaqo u yahay. waxaa laga yaabaa kambaniyaasha markay xisaab xiraan ay ama nafayii soo xiraan amaba ay khasaaraan ama wax lamida ay yimaadaan. marka waxa canshuurta ugu hooseeya hadday dowladdu soo rogto isla markiiba dadkii ganacsatada ay saameyn ayay ku yeelanayaan oo maaragtay duruufaha iyo wacyiga jira oo hadda jiraaho waa wacyi maaragtay khatartiisa leh. wasaaradda maaliyaddana waxaa laga rabaa dadkii inay u dhimirinayso oo iyadu ay maaragtay aada uga warqabto oo tashi badan ay la samayso. dadku shirkadaha aho waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo oo meesha iyo levelka wacyi khatartiisa leh maxaad ka wadaa wacyi khatartiisa leh waxaad tiri wacyi khatarti waxaa weeye horta concernka ugu weyn oo dadku qabaan waxa weeye canshuurtu wax aan la arki jirin ayay wasaaradda maaliyadda soo rogtay oo ah canshuur electronic ah oo lacagta emergentiga lagu kala gato ku dhacaysa. waxaa wax dadku aqoon jireen ma ahan. qofku wuxuu ka walaacsan yahay awalanba marka aad warsato markii aan wax kale loo gudbin aniga oon ogeyn oo waxba aan ka warqabin miyaa lacagtaydii la goosanayaa miyaa lacagtaydii la maamulanaya. way jiri jirta canshuur dowladdu dadka su-aalaysa resiid loo jaro ama ulata boona loo jaro oo qofku isagoo xaadir ah oo raalli ka ah gacanta uu ka dhiibo. laakiin canshuur systemka goosanayo waayo dadkii lagu yiri dadkiina aan wacyigelin aysan u samaynin wasaaraddii aysan barin aysan wakti dheer gelin. canshuurta waa run waa laga soo dooday shirar badana laga yeeshay. wasiir xaange anigana 2 goor waan xasuustaa inta aan shirarka wada galnay canshuurtan looga hadlayay. laakiin waxa cusub oo dadka qalbigooda ka xanuunaya oo dadku ay ka shakisan yihiin oo dadku aysan kalsooni ku qabin waa canshuurtan electroniga ah oo wasaaradda maaliyadda ay ku sheegaysa inay tahay canshuur danabaysan. canshuur aan wax danabaysan iyo electronicna dadka weli wax loogama qaadin. marka arrintaa waxaan isleeyahay waxay ku habbooneed in wakti la siiyo dadka la baro canshuurtan. marka ruuxa la yidhaha accountka adigaa lacag ka go'day adiguna ma ogid xitaa dadku waxay emergencies-ka dareemayaan inuusan siinaynin muxuu ahaa message iyo wax markaa ku wargelinaya in canshuurtii la goostay. laakiin qofku haraagiisa ayuu ka fahmayaa markii masalan qofa wax ka gaday lacag uu usoo diro lacagtii baa go-aysa. dadku arrintaasa horta ugu xanuun badan. midda kale ganacsigu xilliga uu ku jiro waa xilli adag waa xilli dekedihii wadanka aysan midaysnayn oo dekeda kismaayo iyo garacad iyo boosaaso iyo dekedihii berbere iyo ilaa iyo jabuuti aad moodeysa inay magaaladan muqdisho kasoo raqiis noqonayaan oo badeecadii ka timid meeshii dekeda muqdisho u safrin jirtay ay ayagiiba kasoo ka mareen oo sakadeeda ay badeecadeeda soo gaartay. sababkuna waxay tahay canshuurta halkaana iyo dekeda halkaana iyo servicekan iyo dekedahaas waa kala raqiisan yihiin. marka meesha kaa raqiisano badeecada adigay kuusoo safrinaysaa. waxaa laga yaabaa in badeecadii lagu soo safriyey magaalada muqdisho hadda soo gasho ayaa baqdin laga qabaa ama waxaa laga yaabaa cidda gobolada kaaga imaan laheyd kuusoo badeecad doonan laheyd ganacsi kula soo yeelan laheyd inay meelahaas kale u aragta inay kaa jaban yihiin. oo waxaa laga yaabaa jawhar inay beled weyne u safarto oo badeecadii boosaato ay ka qaadato. waxaa laga yaabaa in magaalada afgooye ay kismaayo u safarto. waa suurtagal qofka ganacsiga meesha oo danta ugu jirto ama beecu ka jaban yahay oo aadayaa. marka waxaad leedahay xilliga lagu jira adag oo hahe warkaas waa cadiya si fiican baa lagu fahmay. barnaamijka waa qaybsan doonaa waa kugu soo noqon doonaa. waxaan leeyahay walaal si kooban waxaan leeyahay walaal anagu waxaan nahay rugtii ganacsiga ayaan nahay. waxaan muujinaa ama u qareenaa ama u hadalnaa dadkii ganacsatada ahay. wasaaraddu waxaan leenahay waa wasaaradeenii aad baana u wada xariifnaa.
runtii isla fahamka iyo wada shaqaynteennana way wanaagsan tahay oo waxba hadda maaragtay eeda kuma qabno laakiin waxaan rabnaa waxa ay dareemayaan ganacsatada magaalada muqdisho inay maaragtay u dhowaadaan ganacsiga iyo ganacsigiiba u yeeraan oo konsanka ay hoos u galaan amarka way qaateen dadku laakiin baa jirta weli qalbiyada dadku ma degana waxaan leeyahay markaa wasiixaange iyo wasaaradaba arrinta hoosa lagu aad baad mahadsantahay bal sida ay tahay in hoos loogu daadego iyo sababta loogu daadegayo iyo bal si guud waxyaalaha kale tabashada aad ka qabtaanba waa faahfaahin doonaa wasiirkana waan siin doonaa waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo injineer axmed nuur oo isagu dhaqaalaha iyo teknolojiyadaba isku bartay hawshana uu idinkaa sheegay waxyaalaha laga cabanayo waxaa ka mid ah systemkan cusub iyo barnaamijkan cusub ee sida teknolojiyadeed lacagtii u jaranaya bal injineer axmedow bal si guud hawshana sidee u shaqaysaa markaanu eegno dalalka kale bismillahi raxmaan raxiim waxa weeyaan horta baxda b b c da iyo xigeenka iyo xasan waan salaamaya iyo dhamaan shacbigana dhegeysanayaba runtii horta waxa weeyaan arrimaha noocan oo kale markay dowladuhu samaynayaan wadatashi bay sameeyaan oo arrintaa runtii xasana ka hadlay consultation wax la yidhaahdo oo ay la socoto markaa in wacyigelin policyga dowladdu wadana ay usoo bandhigto ma garanaysaa ganacsatada si markaa marxalada leh wixii loo hirgeliyo oo cashuuro kala duwan bay dee dowladuhu guraan oo intaa wasiirku sheegay maaha runtii cashuuro badan baa jira waxa weeyaan farsamada loo ururinayo dee waxay noqon kartaa mid digital ah oo electronic ahaan lagu qaado iyo mid sideeda kaleba loo qaado way noqon kartaa ka digitalka waa waxay nagu cusub oo caalamka technolojiyadiiba wax ka bedelay laakiin waagii hore waxay ahayd nidaam caadiya oo transactionka dhaca dowladdu marka ay percentage cashuurta saarto marka hirgelinta horta marka la hirgelinayo waxa muhiima wadatashi in lala sameeyo baxda ganacsatada shacbi weynaha laftiisa sektarada iyo qaybaha kala duwan ee ay saameynta ku yeelanayso aanay hore uga jirin ma garanaysa ama nidaam ka duwan ku shaqayn jira cashuurta ku bixin jiray in wadatashi la sameeyo taa waxaan ka dhadhansanayaa inaanay dhicin oo dhinaca dowladda aanay ka dhicin oo wixii uu iska ahaa uu nidaam top down approach nidaam xagga sare ka yimi oo dowladdu hirgelin uun ku wado ay hirgelin ku wado marka kaasina runtii inta badan dee khatar wuxuu ku yahay oo fashilmo oo dowladdu waxa weeyaan marka waxaan oo kale ka shaqaynayso policy bay diyaarsanaysaa oo dee waxaa hubaala in wasaaradda maaliyadda iyo dowladduba ay policy muddaba ka shaqaynayeen dowladihii hore iyo tan imika joogtaaba sidaasoo kale ma garanaysaa guud ahaan dee maamulada kala duwan ee soomaaliduna ay iyagu saasoo kale sameeyaan marka waxa weeyaan waxaad leedahay hawshan waxaa loo baahan yahay okay markaa bal haddaynu eegno dalalka kale iminka kale ingiriiska kale aad kusoo noolaatay iyo dalalkan kale afrikada kale bal hawlahan marka sidan oo kale la sameynayo habkee bay badanaa u shaqeeyaan iyagu bal sidee qorshahan uga shaqeeya dhankooda horta waxa weeyaan cashuurtu waa dakhliga koowaad ee dowladdu ay hesho weeyaan dowladdu waxaana adeegyadeeda ku bixisaa waa cashuurta waa cashuur la-aan waa dowlad la-aan taa waynu isla garanaynaa waxa weeyaan wadamada mataqaana dee horumarka sameeyey wax inta badan waxay hagaajisteen nidaamkii cashuurta loo ururinaha bay hagaajiyey laakiin maaha wax dee habeenkeliya efa ka yimiday oo markeliya la sameeyey maaha waa wax qaatay sanado badan iyo wakti aada u dheer qaatay la tashiyo fara badan marxalado kala duwan soo maray technolojiyada lafteedu wax badan kusoo bedeshay oo ay kusoo kordhisay marka sida u shaqeysa waxa weeyaan policy dowladdu leedahay oy leedahay shaygaasi waa taxable waa shay u baahan in la cashuuro kadibna la yidhaahdo dhaqaalu muxuu awoodi karaa waana arrintaa waxaase runtii ka hadlay ee ah dee in cashuur un qaad maaha waa in dadka laftoodii la eego duruuftoodii la eego marka waxa weeyaan wadatashiga kasoo baxaysaa taas marka waa xog u baahan in laga wada hadlo dhinacyada ay saameynayso oo kadibna sidaa lagu hirgeliyay halkii looga soo dhaqaaqi lahaa aad baad mahadsan tahay kaasi marka waxaa ku xigaya waxa weeya systemkii baa la sameynaya systemkii marka la sameeyo lacagta lagu ururinayay ama ha noqdo digital ama ha noqdo system kale oo mataqaanaa
manual ha noqdo oo ay gacanta sidii nidaamkooda loo ururin jiray kadibna markaa enforcementkii baa imanaya marka saddexdaa stage ayaa horta muhiima in la maro marka waxaan yar dareemaya in systemku lagu bilaabay kadibna ay kala duwanaanshaha taasi keentay aad baad mahadsantahay injineer axmed nuur amiin aad baad mahadsantahay waa hawshaa waa kusidaa degi doonaa balse guud iyo bal waxyaalay ahayd in la sameeyo mudane wasiir sida aad maqlaysay xasan oo kale waxa uu sheegay in xaaladda duruufaha taagan iyo waxaa bal in la eego iyo sidoo kale inay arrimaha yaabka ku keenay ay ka mid tahay in lacagtaadii adigoon wax qorshaa ka lahayn cashuur waxaa la yaqaanay uu ku yimaado qof dowladda ka socda qofka jiwan ama la siiyo waraaq barnaamij noocaas oo kale ah laakiin imika wixiiba hawada lagu kala goosanayaa baa shakigeeday leedahay bal arrintaa wasiir maxaad ka leedahay waad mahadsan tahay xasanna waa mahad celinayaa iyo axmedba niyo horta dhowr arrimood baan rabaa inaan si fiican u dul istaago oo aan kala caddeeyo midda hore waxa weeye canshuurta ayada muranku ma jiro akhyaartana waa ka hadleen canshuurta lama diidana canshuur la-aanna waa dowlad la-aan saas ayada halkaas saar laakiin arrinta canshuurtan hadda aan qaadayno 20 sano oo dowladeennan dambe jirto horta hadba horumar baa laga sameynaya nidaamka canshuur qaadista iyo dowladnimada guud ahaan iyo adeeg bixinta intaba mar walbana intii capacityga iyo awooddu gaarto baa la gaarayay sidaas marka ay tahay canshuurtani wada tashiyo aad iyo aad u badan baan ka samaynay canshuur cusub oo aan soo kordhinayno ma ahayne sida loo qaadayo iyo inaan dadku dhibin dowladdana ay u dhib yaraato ayaanu muddo dhan maaragtay ku jirnay followgeed inaan si maaragtay waxaa lahaa taxi canshuur marka laga hadlayo waxna waa canshuur maxaa la canshuurayaa raydkee la qaadayaa sharciyadeedu see tahay taxi baseku see yahay waa hadda dee rag waa wada fahamsan waayadii la sharaxayay waxna waxa weeye sidee loo ururinaya waxaa la yidhahdaa marka haddii canshuurta aad soo ururinaysid qarashka kaaga baxaya iyo koostiga kaa gelayahay uu ka badan yahay yani lacagta aad soo ururinaysid ama u dhigmo principaleska canshuurta kuma jirto canshuuraaseeda shuruucda lagu yani principaleska lagu qaado oo afarta ay waaweyn marka dowladda Soomaaliya maxay gacanta uga ururin weyday haddii ay arrintu tahay lacagta hadda aan isticmaalno lacag Soomaaliga ma jiro oo dawladdu waxay dadaal xoog leh ugu jirtaa ma gacanta uga macnaha in dadka xitaa waqti ay ku fahmaan la siiyo oo moogtahay wacyigelinta waqti waxaan jirin marka fiiri adiga hadba qofka soo u fiiriyo weeye waa aniga ku sheegayo 2 sano oo xukuumaddaani jirtay waxaanu ka shaqaynaynay nidaamkii lagu qaadi lahaa oo ugu fiican oo dadkan ugu libiyar wacyigelin waa ka sameynay idaacadahan la hadalnay TV-yadan la hadalnay platformska kala duwan oo la isticmaalay hadda anigu doodaan aan qaybta ka ahay waxay ka mid tahay wacyigelinta shalay waxaan la hadlay idaacada kale wasiirku waa la hadlay madaxweynuhu waa hadlay laakiin hadaladiinaasi dadkii ma gaadheen oo ma hesheen in natiijadiina hadalku ay dadkii gaarayaan oo ay ka soo noqonayaan mise idaacado taas ma ogtahay dadkii inay gaareen loo qiimeyn karaa jira oo ma ogtahay loo qiimeyn karo idinkoo kale intaad in fahamka dadku ka haystaan lagu ogaan karo soo ma jirto wasiir adinka fiiri in horta fiiri wax dadka marka loo sheego fulintooda markay bilaabataa dadku aad yani doodooda usii xoogaysataa waana sunnaa caadiga cid bedeli kartana ma jirto intii hore oo dhan dadka khubrada ah dadka ganacsiyada waaweyn rugta ganacsiga dadka ay maaragtay shirkadaha serviceska bixiyo MSPska banuugta bangiyada kulli waa la tashanaynay baarlamaanka qaybaha kala duwan marka laakiin hadda dooda waxa keenay marka sida canshuur la qaadayo dadku waa diidaan waana dhib badan tahay dawladduna way khasabtaa canshuurta khasab baa lagu qaadaa meeshaan u socdo waxay tahay oo sartu ay taalahay annaga dadka ma u naxariisano duruufaha ma xeerinay su-aashu halkan waa xeerinay 5% weeye waxaan qaadayno waxaad joogtaa cabdishakuur hadda BBC waxaan aaminsanahay inaad joogtid Nairobi qofka Soomaaliga sabab marka uu Kenya tagana uu 15 canshuur u bixiyo asagoo aan hadlin oo mobilkiisa ay ka go'do markuu buy goods ku gato hadda ku gataa ilaa hadlaysa markuu Turki tagana ay uga ka badan 18% ay ka go'do oo aqbal ku yahay muqdisho markuu yimaado iyo Soomaaliyana uu $5 uu ka doodo horta waa arrin loo baahan yahay in maaragtay si fiican waa arrin laakiin de kala duwanaanshaha jiro oo halkan adeegyo badan baa la helayaa oo dawladdii bixinaysa sidoo kale waxyaalaha la cashuurayo lafteeda farqi baa idin dhaxeeya bal idinkaan ku weydiiya wasiire 5% aad keenteen bal maxaa ku dhisteen 5% weli noo soo gaarin ba fiiri waa meesha u socdo
waxa la chickenka iyo eega ka horeeyay annaga waxaan u soconaba waxa weeye inaan dadka adeeg u qabanno dadka Soomaaliyeed dawladdii baa burburtay dawladdii hadday 30 sano dawlad aan la ahaa 20 sano dawlad kale baa timid oo tartiib soo dhismaysay waxaan rabnaa adeeg caafimaadka inaan ka qabanno hadda 6,000 oo macallin baanu mushaar siinaa hadda aan kula hadlayo 60,000 70,000 oo ciidamada dawladda ayaan mushaarkooda bixinaa 11,500 oo shaqaalaha dawladda oo Muqdisho ku nool ayaanu mushaar ka siinaa fiir cabdi shukur wax kale aan sheegaya dawladda Soomaaliya 20 milyan lacag gaaraysa ayay Muqdisho ka ururisaa bishii waxaan ku sii deynaa oo dib ugu soo deynaa lacag ka badan 50 milyan oo mushaaraad iyo qarashaad dawladeeda iyo 100 milyan oo kale oo dheeri oo mashaariic iyo qandaraasyo ah marka lacagta anagu aan qaadayno oo aan dib u soo deynayno weeyo horta wuxuu ganacsiga ku tiirsan yahay oo dadku wax ku gadanayaan oo mushaarka lagu kala qaadanayo oo suuqyada galaysa annagu ma nihin shirkadda dawladdu waa ogtahay oo profit making ma aha marka waxaana laga rabaa mas'uuliyad baana saaran dalka amnigiisa inaan sugnaana laga rabaa waxbarashada hooyada bakaaraha iyo meel kale oo Muqdisho iyo dalka annaga ayay mas'uuliyaddeena laga sugaya inaan wax ka qabanno oo adigu hadda waa nagula xisaabtamaysaa media waa nagula xisaabtamaysaa public waa nagula xisaabtamaya marka waxaan u soconay waxa weeye duruuftii waa xeerinay 5% kaliya ka dhignay arrinta waxa soo hartay farsamada qofka message baa berri sabtida wixii ka dambeeyay dabcan markaan bilownay ciladaha soo baxay farsamo waa ka shaqeynaynaa maalin kasta situation room ayaa furan oo cid ay qusayso lagu yahay wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe wasaaradda ganacsiga hay'adda telecommunicationka wasaaradda kulligeeyo waxaan leenahay fadhi iyo ganacsatada shalay u dambeysay galab waxaan la shirnay shirkadaha service provider bixiya waxaan ku amarnay in qofka marka uu intuusan lacagta dirin marka uu wax gadanayo inay lacagtii loo systemka u calculate gareeyaan 5% hal dollar baa gadatay 0.5 baa kula socda oo cashuurtii ah khasnadii dawladuna ku dhacay saas ugu dhacay rasiid ku dhaco marka arrinta waxa sheegay waa run waxaan ka qabanaynaa maxaan kaloo wax ka qabanay waxa dib u fiirisaa qaraarkii aan shalay soo saarnay oo golaha wasiirada soo saaray oo 20 qodob ka koobnaa 20 qodob ba 20 cabasho oo ka yimid ganacsatada baa lagu xalinayay marka ganacsiga haddaanu shaqaynin canshuurna ma qaadan karno dawladduna ma shaqayn karto qof kasta oo ganacsada ah baan rabnaa inay ku dhaqaaqdo cabdishakuur waxaan kugu gabagabeynayaa cabdiraxmaan weeye cabdiraxmaan bibilow ganacsiga Soomaaliyeed meeshu hadda uu joogo waxaan rabnaa inuu kor uga kaco dawladda mas'uuliyadda ka saaran hadda waxaan ka shaqaynaynaa waxa la yiraahdo public private partnerships iyo in maalgelin caalami ah la helo oo dhaqaaluhu kor u kaco oo shirkadaha lafahoodii xisaab xiraya ama khasaaraha xisaab xiraya si guud qaardarrada u jirta waa marka waa in la helaa sources dheeri ah 75% dhalinyarada Soomaaliyeed waa bilaa shaqo la'aan baa jirta jaamacaadkii bay ka baxayaan mas'uuliyaddaas dawladda ay saaran tahay inaan waxaan rabnaa marka la helo shaqo abuur aad baad u mahadsantahay xogtaas waa caddahay waxaan rabaa inaan siiyo xasan inaan mar kale siiyo bal siday u arko bal falcelinta hadalkaas xasan cabdi xamed gudoomiyaha rugta ganacsiga suuqa bakaaraha duqad ku jiro aad baad mahadsantahay walaal wasiirku waa mahadsan yahay sharaxaadda u bixiyey waxaa su-aal weyn ah oo meesha taalla oo ganacsatadana caqabad weyn ku ah culaysna ku ah dekedihii waddanku ma midaysna masalan dekeda kismaayo 700 kilomitr inoo jirta waa masaafo aad noogu dhow iyada iyo dekeda canshuurtii iskaga mid ma ahan serviceki iskaga mid ma ahan qofka wax la soo degaa qiimaha oo badeecadiisu ay banaanka ku imaanaysaa wax isku dhow ma ahan haddii aan la midaynin oo dawladda dhexe aysan midaynin dekedahaas badeecooyinku isku qiimana ma noqon karaan dadkuna gobollada ay kala degan yihiin ayaa kala duwanaanayo suuqiina waa halis ku noqonaysa arrintaas soo degto importiga aan si fiican badeecada soo degto importiga meesha loo safriyo way ku tartamayaan arrintaas waxaa su-aashu tahay waa arrin muddo soo taagmay ganacsigana saameyn weyn ku leh waxyaalaha taagan ayay ka mid tahay markii laga soo tago canshuurahan cusub iyo hadda shacbiga ka taagan maxay dawladdu arrinta macnaha uga meel yaalla in badanna waa aan weydiinay waxaana la rabaa meesha ay sartu ka qoruntay ama meesha xanuunaysa ganacsatada in la aado abaabulka iyo wacyigelinta iyo waxku sheegidda iyo wadatashiga iyo in la iska dhegaysto يعني meesha qabtaa oo ay tahay in maartay dad wax ka qabadkooda ay tahay meelaha ka midka ah waxa kamid ah canshuurtaas aan midaysnayn canshuuraha dekedaha
dekedaha raqiista canshuurtooda ay tahay waxay soo gaarayaan masaafo u dhow magaaladii muqdisho. marka wasiirku waana mahadsan yahay runtii. aad baad mahadsantay. waa weydiin doonaa su-aasha wasiirka. waxaan rabaa intaanan wasiirka siinin bal inaynu dhegeystayaasheena oo aragtidooda noogu soo duubay barta Facebook bal iyagana aan dhegeysano bal waxay qabaan. Thank you.